السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تفسير كان القرآن كريم كأين كوجد جرنا ولنا وحين كوجد جرنا جزء كي لحاد قار أهان سورة المائدة. درس جانا ما توحو كبلا ميا مقرد لحاد جزء لحاد aayadda uu nambarkeedu yahay 41 ee suuratul maa'ida wuxuuna ku dhammaan doonaa aayadda nambarkeedu uu yahay 50 ee suuratul maa'ida. yaquulu allahu subxaanahu wa tacaala yaa ayuha rasuulu rasuul allow laa yaxzunka yuuna ku murugelinin alladiina kuwa yusaaricuuna u degdega filkufri gaalnimo dhexdeed u degdegee gaalnimada u degdega ee min alladiina kuwii ka mid ah qaaluu yidhi aamanaa waan rumaynay biafwaahim aafafyaalkooda ama afkooda ka yidhi waan rumaynay walam tu'min ayna rumaynin quluubuhum quluubtoodu kuwaasi waa kuwa munaafiqiinta qoladaas waa koox. wa min alladiina kuwiina yayna ku murugelinin iyaguna gaalnimada u degdegay kuwaasina maxay yihiin? wa min alladiina kuwiina yayna ku murugelinin haaduu yahuudoobay samaacuuna waa kuwa maqlid badan lilkadibi beenta. marka samaacuna lilkadibi kuwa u maqlid badan weeyaan beenta. laba qowl ayaa ku sugan ayay culimadu yidhaahdeen. qowlka hore waxa weeyaan beenta ayay maqlaan oo way aqbalaan. qowlka labaadna waxa weeyaan waa kuwa u maqlin badan beenta majliskaaga ayay rasuulkii allow soo xaadirayaan, markaasay dhegaysanayaan. markay dhegaysataan ayay adiga hadalkaa tidhi ay wax ku dardarayaan oo been sheegayaan. arrinkaasina caqli ahaan ayuu macquul u yahay oo qofku haddii auna meel auna joogin au wax ka sheega waxa lagu odhanaya war maad joogtay adigu? maya maan joogin, marka beenta way soo baxaysaa. laakiin haddii qofku au majlis joogo yidhaahda anaa fadhiyey sidaasuu yidhi, yacni beentiisii ayay xoog siinaysaa. sidoo kale culimmadu waxay idhahdaan qof haddii au kuu yimaado oo kula hadlo oo haddana isagoo dadkii arkay ku yidhaahdo waxaasaan weydiiyo waxaasuu igu yidhi, iyo isagoonku arag way kala duwan tahay. samaacuuna waa kuwa maqlid badan lilkadibi beenta. labada qowl ayaa ku sugan. samaacuuna liqowmin aakhariin waa kuwa marka u maqlid badan qoom kale. taana culimmadu waxay dhahdaan laba qowl ayaa ku sugan. qowlka hore waxa weeyaan samaacuuna yacni waxay ka maqlaan way u maqal badan yihiin qoom kale oo markaa kuwa yahuudda ah ee bedelaya alla subxaanahu wa tacaala kelmadihiisa xukunkiisa bedelay. marka ay beenta ka maqlaan way rumaystaan. kaasi waa qowl. qowlka labaadna waxa weeyaan in la yidhaahdo ay leeyihin mufasiriintu kalaamkaaga ayay u naqilaan oy u geeyaan qolada odayaasha ah ee reer bani israa'iil oo culimada ah, oo waa kuwa markaa basaasiin oo adi markaa ku dhex fadhiya. alla wuxuu leeyahay markaa ومن الذين كوي هادوا يهودوبين سماعون وكوا مقلد بدن لكذب بينتا سماعون وكوا مقلد بدن قوم أي مقلد بنيهن آخرين كلا كواسو لم يأتوك أديك عن مجلس كاغ إيمان أنكو إيمانين يحرفون ويبدلان الكلمة كلمة أي كبدلان ويرها أي كبدلان من بعد مواضعه، يعني كلمة أي كبدلان ميلها إلهي أو دقي وكلام كي الله أي حرفيهن وتصالحان xukun ayuu ilaahay soo dejiyey. xukunka uu soo dejiyey ayay markaa xukun kale ayay ku qorayaan. marka xukun ku qoraan ay leeyihiin ilaahay baa yidhi arrinkaasina waa dembi weyn. yaquuluuna waxay leeyihiin in uutiitum haddii la idinla yimaado haadaa kan fakhuduuhu qaata, intay fatwo siiyaan. yani halkan aayaddan soob nusuul ayay lahayd. soob nusuulkaana riwaayado fara badan ayaa ku sugan. riwaayadaha imaam maalik oo kale soo wariyey, riwaayadaha qaarkood muslim bay ku sugan yihiin, riwaayadaha qaarkood bukhaari ku sugan yihiin. laakiin haddaan soo jamciyo si kooban, riwaayaadkaas waxay tilmaamayaan nin iyo naag yacni ree yahuudda ah, reer bani israa'iil ah ayaa zinaystay. khaybar agteeda ayayna deganayeen. markay zinaysteen ayay dad yacayda markaa rasuulka ayaa markaa arrinkii loo keenay. marka nimankii madaxda ahaa culimadii reer bani israa'iil waxay ku yidhaahdeen haddii uu idinku yidhaahdo waxaad jald
iyo sida xukunka iyagu ay bedelaan tusaale ahaan in qofka jeeda lagu dhufto dameerna la saaro iyo saan sheegi doono insha allahu tacaala hadduu ku yidhaahna aqbala waatan wa in uutiitum haada kaa haddii au idinku xukumo nabi maxamed yeela fakhuduuhu qaata wa in lam tu'towhu haddii la idinla yimaado kaa qaata haddii kaa la idinla iman waayana faxdaru ka digtoonaa iska ilaasha hadduu rajmi iyo waxa uu idin yidhaahdo maxamedna iska diida markaa rasuulka markii loo keenay sala allahu calayhi wasalam ayuu ku yidhi reer bani israa'iil maxaad idinku ku xukuntiin markaasay yidhaahdeen annagu marka ay sinaystaan laba qof oo sidaasi yacni waxa weeyaan dameer baan saarnaa markaasaan iyagana xagga madaxa maaha madaxa dameerkiisa ma xagga dabadiisaan u jeedinaa wejigiisana wejiga labadana waan madoobeynaa magaaladan dhex marnaa si markaa aan ugu ceebayno markaas riwaayad qaarkood waxay leeyihin rasuulku ninbuu ku yidhi ilaahay baan kugu dhaarshay sheeg yahuudiya markaasuu ku yidhi maya rajmi ayaa ku qoran riwaayadda sida oo kale uu soo warinay imaam maalik nink waxa weeyaan iyadna waxay leedahay in rasuulka markii towraad loo keenay cabdullaahi ibn salaamna uu la joogay ayaa akhriya markuu ku yidhi ninka akhriyaya wuxuu saaray gacantii aayadda qaybtii ku qornayd dhagax in lagu dilo intii hore u akhriyay intii dambe markaasuu ku yidhi been buu sheegayaaye gacantaa ka qaada aayaddu xaggaasi ku jirtaa markaas ayaa markaa la arkay markaa sababa nusuulkaasi waa sababa nusuul sugan weeyaan aayaddana markaa ay ku soo degtay markaa sababa nusuulkaas markaa waa sababa nusuul sugan markaa rasuulku sala allahu calayhi wasalam wuxuu ku xukumay markaa rajmigii ayuu markaa ku xukumay sala allahu calayhi wasalam markaa riwaayadu way ka badan yihiin sharax dheer bay u baahan yihiin laakiin intaa ayaynu kusoo koobsanaynaa maadaama tafsiirkeenu yahay kii koobnaa alla wuxuu leeyahay yaquuluuna waxay leeyihiin in uutiitum haddii la idinla yimaado haadaa kan yacni 100 jeedal iyo kaa ay sheegeen oo ah markaa dameerna la saaro wejigan loo madayo dhan kalan loo jeediyo fakhuduuhu qaata wain lam tu'towhu haddii la idinla iman waayo kaa aan siinoo la yidhaahdo rajmin iyo waxaasa uu idinku xukumana faxdaruu ka digtoonaadu ha qaadanina alla wuxuu leeyahay waman yurid illaahu qofka au la doonay alle fitnatahu waman yurid illaahu qofka ilaahay au la doonay fitnatahu fitnadiisa ee alla subxaana wa tacaala ou lumid au la doonay falan tajida u heli waman yurid illaahu qofka ilaahay au la doonay fitnatahu fitnadiisa au la doonay ou alle lumintiisa au doonay waman yurid illaahu qofka au doonay au la doonay alle fitnatahu fitnadiisa au doonow lumintiisa au doonay dadka ka mida falan tamlika u mulkii maysid lahu isaga nebi maxamedow min allaahi alle xaggiisa shay-an shaynaba markaa ulaa'ika kuwaasi aladiina kuwii weeyaan lam yurid illaahu alla auna la doonin an yutahira inuu tahiro quluubahum quluubtooda lahum waxay leeyihiin fi dunya adduunyada waxay ku leeyihiin khizyun dulli ayay ku leeyihiin buu leeyahay allah subxaanahu wa tacaala adduunyadan iyo ceebayn ayay ku leeyihiin walahum waxay ku leeyihiin fi laakhira aakhirana waxaa ugu sugnaaday cadaabun cadaab cadiimun weyn cadaabkaasina waa cadaabu naar naarta cadaabkeeda wey alla wuxuu leeyahay samaacuuna waa kuwo u maqlid badan lilkadibi beenta akaaluuna waa kuwo cunitaan badan lisuxti xaaraanta marka lisuxtiga culimadu waxay leeyihiin 2 qowl ayaa ku sugan qowlka hore waxa weeyaan in la yidhaahdo akli maal naas bilxaraam dadka maalkooda xaaraan in lagu cuno sida ribada qowlka labaadna waxa weeyaan culimadu yidhaahdaan waa in xaakimka ama ninka garsooraha ah ee qaadiga ah rishwo la siiyo oo la iibsado xukunkii si markaa ugu xukumo xoolihii dadka arrinkaasina waa arrin runtii aad caan u ah dadkuna ay ogyihiin innaga dadkeena soomaalidana hadduu qofku qisaska soomaalida ururiyo waxaad arki doontaa zamanadan dambe 2 qof oo wax isku haysta inuu ka maalka badan liintuu bixiyo loo xukumo oo ninkii intuu u tago kii kale ku yidhaahdo inta anu aan lacag haysto xukunkaasi weligaa kuu dhici maayo markaa idan masaladaas waa masale khatarteeda leh
ahlulxadiidkuna qofka aqbala xukunka waxa weeyaan way u degi jireen. tana waxa u daliil ah cabdillaahi ibn mubaarak imaam aljaliil oo bukhaari markii uu ka warramay aabiha uu yidhi aabbahay imaam maalikna uu hor fadhiistay, ibn almubaarakna labadiisa gacmood buu ku salaamay, yacni sharafan imaam weyn ayuu ahaa. ibn mubaarak ayaa wuxuu u diray risaalo qawiya lahja, yacni risaalo kul oo adag ayuu u diray sheekhii imaamka ahaa ee weynaa ee muxadiskaha la odhan jiray ismaaciil ibnu culaya. markii uu aqbalay inuu noqdo qaadi, uu amiirkii mandiqadiisa ka aqbalay inuu qaadi uu noqdo, markaasa wuxuu u diray ibn mubaarak raximahullah, wuxuu u diray risaalo, wuxuu u diray markaa qawiya lahja ah oo runtii aad u adag ayuu u diray. marka ismaaciil ibn culaya imaam weyn ayuu ahaa. markuu risaaladii akhriyey ayaa markaa wuxuu u tegey amiirkii, markaasuu ku yidhi aqilnii cazil. markaasuu yidhi ma waxaa warkiisa ku soo gaadhay wadaadkii, ayuu warkiisu soo gaadhay ibn mubaarak. markaasuu yidhi wallaahi nasaxani buu ninkaasi ima lugoyne muu ku fidneeye buu markaasuu yidhi may nasaxani. sidaa awgeed mas'aladaasi waa mas'alo aad iyo aad markaa muhiima. yaquulu allahu subxaanahu watacaala samaacuuna waa kuwa u maqlid badan lilkadibi beenta, akaaluuna waa kuwa cunitaan badan lisuxti xaaraanta. fain jaa-uuka hadday kuu yimaadaan faxkum ku xukum baynahum dhexdeeda, aw acrid ama ka jeesa canhum iyaga xaggooda. nebi maxamedow hadday ku yimaadiin labadaaba adiga way ku bannaan tahay inaad kala xakunto iyo marka inaad ka jeesato. wa in xakamta haddaad kala xakumto faxkum ku xakum baynahum dhexdooda bilqisti cadaalad ku xakum. ina allaha alle laa yuxibu ma jecla cafwan ina allaha alle yuxibu wuxuu jecel yahay almuqsitiina kuwa cadaaladda fala. wa in xakamta haddaad kala xakunto faxkum kala xakun baynahum dhexdooda bilqisti cadaalad ku kala xakum. ina allaha alle yuxibu wuxuu jecel yahay almuqsitiina kuwa marka ay wax xukumayaan cadaalad xakuma ayuu jecel yahay alla subxaanahu watacaala. marka halkan culimmadu aqwaal ayaa ku sugan. waxay leeyihin haddii uu ku yimaado ahlulkitaabku ma waxaad ku xukumi xukunkoodii towraad mise xukunkii yacni islaamka. marka culimada qaarkood waxay leeyihiin aayaddan dambe ayaa caddaynaysa in hadday kuu yimaadiin lagu kala xukumayo xukunka markaas lababa uu qofku leeyahay inuu ka jeesto, hadduu xakumana markaa lagu kala xukumo xukunka islaamka. kuwa kalena waxay leeyihiin maya, aayadda hore ayaa daahirkeedu sheegayay in koodan lagu kala xukumi karo. wallaahu aclam. wa kayfa sidee bay ilaahay markaan la yaabnacam waxa weeyaan kuwa amarkoodu waa shay lala yaabo. wa kayfa sidee bay yuxakimuunaka ay kaaga yeelanayaan garsoor, sidee ayay garsoore kaaga dhiganayaan, sidee ayay xaakim kaaga dhiganayaan. wa cindahum agtooda waxa ah attowraatu towraat baa ah, fiiha waxa ku sugan dhexdeeda xukmullaahi ilaahay xukunkiisa. huma intaa kadibna yatawallowna way jeedsanayaan, min bacdi daalika intaa ka bacdigiina way ka jeesanayaan xukunkii towraad ku yaalay. yani huma intaa kadibna yatawallowna wa kayfa sideebay yuxakimuunaka garsoore kaaga dhiganayaan, xaakim kaaga dhiganayaan. wa cindahum agtooda waxa ah attowraatu towraad, kitaabkii towraadada ayaa ah, fiiha dhexdooda wa cindahum agtooda waxa ah attowraatu kitaabkii towraadeed, fiiha kitaabka dhexdiisa waxaa ku sugan xukmullaahi ilaahay xukunkiisa, ama towraad dhexdeeda waxaa ku sugan ilaahay xukunkiisa. huma intaa kadibna yatawallowna xukunkii adu aad ku xukuntay ayaa marka au hawadoodii iyaga au raaci waayo oo waxay doonayaan au waafiqi waayo, way kaa jeesanayaan. huma intaa kadibna yatawallowna markay xukunkuu keentaan eed ku xukuntay xukunkaagu haddii au waafiqi waayo wixii iyagu ay rabeen, way ka jeesanayaan min bacdi daalika intaa ka bacdi. wamaa ulaa'ika kuwaasina maaha bilmu'miniina kuwa mu'miniin ah. alla wuxuu leeyahay innaa annaga alla ah anzalnaa waxaan soo dejinay. halkan waxaa laga ammaanayaa towraad. attowraata kitaabka towraad ayaan soo dejinay,
fiiha waxa ku sugnaa hudan hanuun wa nuur iyo iftiin yaxkumu biha ay ku xukumi jireen annabiyuuna nebiyadii aladiina kuwaasoo aslamuu u hoggaansamay alle liladiina kuwii ka mid ahaaduu yahuudoobay waalrabbaaniyuuna culimada markaa fuqahada ah ee ilaahay u go'ay dadka een rabeeyana way ku xukumi jireen waalaxbaaru culimmadii reer bani israa'iilna way ku xukumi jireen bima stuxfiduu kii lagu aaminay min kitaabiillaahi ee kitaabka alla ah ayay ku xukumi jireen wa kaanuu waxay ahaayeen calayhi isaga korkiisana shuhadaa kuwo markaas markhaati ah bima stuxfiduu kii markaa lagu aaminay ee iyaga marka agtooda lagu aaminay oo kitaabka alle ah oo min kitaabka alle ka mid ah wa kaanuu waxay ahaayeen calayhi kitaabkana shuhadaa kuwo markaas markhaati ka ah alle wuxuu leeyahay falaa takhshow naasa dadka haddaba ka baqina wakhshowni aniga iga baqa walaa tashtaruu hana ku iibsanina biaayaatii aayaadkayga thaman ama lacag qaliilan yar yacni adduunyo yar iyo adduunyo mid wax yar iyo wax badan baa ku iibsanina laakiin adduunyada gebigeeda marka aakhire la garab dhigo wax yar noqonaysa alle wuxuu leeyahay waman lam yaxkum qofka ku xukumi waaya bima anzala allahu ilaahay wixii uu soo dejiyey fa ulaa'ika kuwaasi hum lkaafiruuna waa gaalada xaqa weeye marka halkan culimmadu tafsiil ayay markaa ay yidhaahdaan tafsiilka laakiin si yaroo kooban ayaanu sheegi doonaa qofku haddii uu aamino in kitaabka ilaahay inuuna aslaxaynin in dadka lagu maamulo kaasi culimmadu waxay yidhahdaan waa kaafir xaqa markaa iyo in uu ka fiican yahay sidoo kale ku kale uuna qur-aanku markaa soconayn ama mid kale markaa inuu la mid yahay laakiin halkan sharax fara badan ayaa ku sugan madrasata ibnu cabaas sida ardadiisa taawus ibni kaysaan iyo markaas culimmadii waaweyneyd waxa iyagu sharxaan gaalnimo la yidhaahdo yacni kufr duuna kufr qofku haddii isagu uu aaminsan yahay cagsa daalik inuu qur-aanku yahay dastuurka keliya inuu qur-aanka wax lamidii auna jirin inuu qur-aanka wax ka sareeya auna jirin oo waxa weeyaan au meelaha qaarkood oo kale marka culimadu tusaalooyin bay keenaan marka yacni aqwaasha ayaa ku sugan tafsiilkan insha allahu tacaala kutubta dhaadheer ha loo raadsado ibnu kathiirku aad buu markaa u sharxaa wakatabnaa waxaan ku qornay buu leeyahay alle calayhim kuwa yahuudda ah waxaan ku faral yeelnay oon ku waajibinay yahuudda korkooda fiihaa wakatabnaa waxaan ku waajib yeelnay calayhim kuwa yahuudda ah wakatabnaa waxaan ku waajib yeelnay calayhim kuwa yahuudda ah fiihaa towraad inuu ku sugnaa ana nafsa binafs nafta nafdisha ana nafsa hadday nafdisho naf binafsi in nafta loo dilo waalcayna ishana bilcayni il in loo rujiyo waalanfa sankana bilanfi in san loo gooyo waaluduna dhegtana biluduni in dheg loo jaro wasinna iligana bisinni in ilig loo jaro waaljuruuxa dhaawacana qisaasun in la kala qisaasto ayaa ku qornayd buu leeyahy alla subxaanahu wa tacaala towraad faman tasadaqa qofkii sadaqadaysta bihi intaa lasoo sheegay ama dhaawaca noqoto ama naf dishay ama yani meeshii intaa lasoo sheegay oo dhanba waxa weeyaan fa huwa kafaaratun lahu taa ayaa markaa kafaara u ah oo dembi dhaaf markaa u ah waman lam yaxkum qofkii ku xukumi waaya bimaa anzala allahu alla wuxuu soo dejiyey fa ulaa'ika kuwaas hum iyagu addaalimuun waa kuwa dulmifalayaasha ah alla wuxuu leeyahy waqafaynaa waxaan raacinay calaa aathaarihim reer bani israa'iil nebiyadoodii raadkooda biciisa ciise ayaan raacinay ibni maryama ina maryan ahaa nebiyullaahi ciisa musadiqan isagoo rumaynaya limaa bayna yadayhi wixii ka horeeyey isagoo rumaynaya wixii ka horeeyey min atowraati oo kitaabka towraad ah
wa aataynaahu waxaan siinay alinjiila ciise waxaan siinay injiil fiihi dhexdeeda waxa ku sugan injiil hudan hanuun wa nuurun iyo iftiin wa musadiqan waxa kaloo ku sugan isagoo rumaynaya limaa bayna yadayhi wixii ka horeeyey min atawraati aw towraad ah wa hudan hanuun ayaa ku sugan wa mawcidatan waana ayaa ku sugan oo ugu sugan lilmuttaqiina kuwa ilaahay ka baqa. alla wuxuu leeyahy walyaxkum ha ku xakumeen ahlulinjiili injiil ehelkeedu yacni nasaaradu ha ku xakumeen bimaa anzala allaahu ilaahay wixii uu ku soo dejiyey fiihi dhexdiisa. alla subxaanahu watacaala wuxuu leeyahy ha rumeeyeen nasaara wixii ilaahay uu ku soo dejiyey injiil dhexdeeda hana ku xakumeen ayuu leeyahy alla subxaanahu watacaala injiil wixii ku yaalay dhexdeeda oo ah inay rumeeyaan rasuulka sala allahu calayhi wasalam. alla wuxuu leeyahay waman lam yaxkum qofkii aan ku xakumin bimaa anzala allaahu ilaahay wuxuu soo dejiyey fa ulaa'ika kuwaasi hum alfaasiquun kuwaasi waa kuwa daacadda ilaahay ka baxay. alla wuxuu leeyahy wa anzalnaa waxaan soo dejinnay oon ku soo dejinnay rasuul allow ilayka xaggaaga alkitaaba kitaab ayaan ku soo dejinnay bilxaqi xaq ah musadiqan kaasoo rumaynaya limaa bayna yadayhi wixii ka horeeyey rumaynaya min alkitaabi oo kutubta ah wa muhayminan isagoo ilaalinaya calayhi kaana isagoo markaa wa muhayminan calayhi iyo isagoo markaa ilaaliye ah oo markaa lagu aaminay kitaabka kutubtii ka horeysay markaa. alla subxaanahu watacaala wuxuu leeyahay faaxkum ku xukum baynahum dhexdooda ku kala xukun bimaa anzala allaahu ilaahay wixii uu soo dejiyey walaa tattabic raacin ahwaa'ahum hawadooda camaa jaa'aka kii ha ka raacin adiga kugu yimid min alxaqi oo xaq ah likullin jacalnaa minkum shircatan wa minhaaja. alla subxaanahu watacaala likullin ay likulli ummatin ummad walba jacalnaa waxaan u yeelnay oo minkum idinka mida shircatan shariico wa minhaajan iyo dariiq cad walow shaaa allaahu alla hadduu dooni lahaa lajacalakum wuxuu idinka yeeli lahaa ummatan ummad waaxidatan keliya walaakin hase yeeshee alla subxaanahu watacaala ummad walba wuxuu u yeelay shariico ayuu u yeelay sharci ayuu u yeelay subxaanahu watacaala liyabluwakum si markaa uu idinku imtixaamo fiimaa aataakum wixii uu idin siiyey fastabiquu u kala badiya oo u kala baratama oo u kala hormara alkhayraati khayraadka ilallaahi alla xaggiisa unbaa marjicukum noqodkiinu ou yahay jamiican dhammaantiin fayunabi'ukum wuxuu idinka warrami bimaa kuntum wixii aad ahaydeen fiihi dhexdiisa takhtalifuuna kuwa isku khilaafa waanixkum ku xakum buu leeyahy alla subxaanahu watacaala ku kala xakum buu leeyahy alla baynahum dhexdooda rasuul allow bimaa anzala allaahu ilaahay wixii uu soo dejiyey wixii ilaahay ou adiga kugu soo dejiyey rasuul allow ku kala xakum walaa tattabic hana raacin ahwaa'ahum iyaga hawadooda taasoo markaa ka soo burqanaysa ama kasbiya qaadanaysa wax ay naftoodu jeceshahay. alla wuxuu leeyahy waxdarhum ka digtoonow rasuul allow maxaad ka digtoonaataa an yaftinuuka inay kaa fitneeyaan can bacdi maa kii qaarkii anzala allaahu ilaahay ou kugu soo dejiyey ilayka adiga fa in tawallow hadday jeestaan oy ka jeestaan can qabuuli alxukm bimaa anzala allaahu ilayka hadday ka jeestaan aqbalitaan ay aqbalaan ilaahay waxa uu kugu soo dejiyey faclam ogow annamaa yuriidu allaahu ilaahay wuxuu la rabaa an yusiibahum inuu ku asiibo bibacdi dunuubihim dembiyadooda qaarkood wa ina kathiiran in badanoo min annaasi dadka ka midihi la faasiquuna waa kuwa daacadda alle ka baxay. alle wuxuu leeyahay lagu soo gebagabaynayaa maqradan aayaadkan afa xukma aljaahiliyati ma jaahiliyadda xukunkeeday yabquuna raadinayaan jaahiliyadda xukunkeeda miyay raadinayaan afa xukma aljaahiliyati yabquun jaahiliyadda xukunkeeda miyay raadinayaan waman axsanu yaa ka wanaagsan min allaahi alle xukman xukun ahaan ayaa uga wanaagsan
liqowmin qowm yuuqinuuna wax yaqiininaya. yacni istifaamka culimmadu waxay yidhaahdaan macnihiisu waxa weeyaan in la yidhaahdo markaa walaa axsana min allahi xukman, alle cid ka xukun wanaagsani ma jirto. falaa axad axsana xukman min allahi cinda ahli yaqiin. dadka ahli yaqiinta ee wax yaqiini iyagu waxay ogyihiin in ilaahay wax ka xukun wanaagsani aw jirin, xukunka aw rasuulka ilaahay kusoo dejiyena aw yahay markaa mid wanaagsan. laakiin ahlujahlka, kuwa ahlu jaahilka jaahiliintiihi, iyagu waxay aqbalayaan wixii naftoodu ay jeceshahay oo baatil ah.